dhalinyaro adinkoo kale ah oo hooyo iyo aabbe ay soo barbaariyeen oo ay juhdi badan iyo soo geliyeen dhalmada hooyanimo iyo midka aabbanimo ka sokow in maalgelin badan la soo geliyo wax lasoo barayo lasoo barbaariyey ayaa la yidhi dalkiina ayaad muxuu wax u noqonaysaan ciidan aad noqonaysaan dalkaad difaacaysaan qaar waxaa la yidhi fursad la-aan iyo baagamuundo iyo shaqo la-aanaa idin haysa shaqaan idin geynaynaa waa la qaaday waa la xaabiyey eritrea lagu shubay tababaray ku maqan yihiin ciidamadii siyaasiyiinteena waana lagu handaya waa ciidanka eritrea imaanayo waa lidi dardara waa lidi xasuuqa ilaan waa niman dhallinyaraa oo intana markay ka baxayn la qalday xaggana la iibsaday waa la iibsaday maxaa ku tilmaami karta adiga wax kale oon aniga ku tilmaam maaqaan dhallinyaradaas waa la iibsaday eritrea la geeyey war iyo wacaal wax u haya ma leh war soo duulay oo xaggay xag ka soo duulay oo waa dhinteen oo aksum ay ka dagaalameen oo xaggay tageen makala lagu laayay iyo xaggay dhaceen iyo muxuu buuraa ay ka daateen oo qara muxuu ay ka dhaceen oo waa dhinteenoo waa saano dowladdii dhallinyaradii qaaday hal maalin inta dadka soo hor istaagaan dhallinyarada laga hadlaayo xaalkoodu waa sidaan ma ayan dhihin ilaa weli ma aqbalin eritrea dhallinyaro u dirna xataa weli ma aqbalin iska daa eritrea dhexdeeda waxay kula sugan yihiin sidaasi mas-uuliyad ma aha sidaasi dadnimo ma aha waxaa la qarinaya waa maxay wax si qarada loo sameeyaa la qarinaya waa midda aan leeyahay dhallinyarada waa la iibsaday ninna kuma dhaco inuu idaacadda soo istaagi laha dhallinyaradii aan iibsanay halkaasay ku dambeeyeen kuma dhaco waxaan leeyahay dowladda iyo raggii siyaasiyiinta ahaa kuwa hadda jooga iyo kuwa berigii dhallinyaradu ay bixiis xilalka ahay laakiin hadda aan xilka haynin intaba mas-uuliyada ka saaran waa inay sheegaan dhallinyaradaas xaalkooda sababtay u baxeen iyo tiradoodii iyo meeshay aadeen iyo maanta waxay ku sugan yihiin waa in la sheegaa hooyooyinka dariiqa taaganay maalin walba oynayahay xaqay leeyihiin in ilmahoodii loo sheego xaaladooda xaqay u leeyihiin annagaa mas-uuliyad naga saaran tahay inaan dhahno codkeenna ku biirino dhahno war waa arrintaana jirto madaxweynihii hore maxaanku irahdaa iyo xukuumadda dhammaanteed iyo maxaanku irahda hogaankii ama kuwa hadda jooga hadday yihiin iyo kuwii berigaa jooga ciidamada qalabka sida intaba waxaan ka dalbanaynaa dhallinyaradaas xaaladooda iyo warkooda inay keenaan inay sheegaan meesha tiradooda intaasay ahayd ujeeddadaasi loo qaaday mxuu dalka looga qaaday maantana xaalkoodu waa sidaas maalin hebelay soo noqonayaan waa in ay u sheegaan hooyooyinka maalin walba waddada taagan ee cabanaya ee oynaya ee muxuu ahay hurdo iyo hoyaad ka tegey waa inay u sheegaan dhammaanteen hooyo aabbayaalaan nahay ma raalli kama noqon karno wax kastoo dhacahay ilmahanagi inaan meel ku ogaan weyno ama aan muxuu ahay war dalkan yaa dalba oo yaa kuladii la dhihi jira yaa iska leh haddii ilmaheenniina saas aanan madaxda un-ka hadda ka hadli wahay jimciyadda qurumaan ka dhexaysaa ka hadli wayso oo leh waxaan soo ogaanay in dhallinyaro soomaaliyeed oo soomaaliya laga qaado eritrea tababar loo geeyey dagaal inay ka galeen etoobiya dhexdeedii aksum iyo meelaheed ay ka dagaalameen aan soo ogaanay wararkaasaan helnay leeyihiin ayagaa raadiyoa ka warramoa dowladdeeni maxaa ku dhacay maxay uga warrami laadaay war xataa wiilasha meesaan u dirnay dagaalkaas waa galeen annaga umaana dir hayilaa inkara hadday doonaan waa u dirnayo dal aan saaxiibna lahay wax ka difaacayan dan soomaaliya ku jirtay ha noo sheegaan ha nagu qanciyaan laakiin waa in laga hadlaa in laga aamusahay ma mudna in laga aamuso ma mudna marka maalinna in oo wiilasheenni iyo carruurteennii jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ay noo sheegto maalinna dalkeenna dekadaha uu bixinaya iyo maxaanku idhaahdaye heshiisyada caalamiga u gelayahay ay madax kale oo dalal kale madax ka ah ay noo sheegaan nagama qabato mas-uuliyadda iyo madaxda dowladda ee maanta joogtaa iyo kuwii shalay joogay intaba nagama qabataan leenahay dowladdu iyo madaxdu waa kuwa dadka soo hor istaaga oo u sheega runta hadday kharaar tahay xataa waa loo sheegaa waa wax jira oo adiga aadan qarin maantaad qarinay beriyaad qarinay maalinta dambe intii hore ayadoo kasii kharaaray imaanay sheeg waxaan leenahay madaxweynihii hore iyo tiimkiisa iyo xukuumadda intaba
shacbiga Soomaaliyeed arrinta dhalinyarada Eritrea ma qarsoomi karto ha ka hadlaan ha hor yimaadin dadka ha u sheegaan runta haday kharaarta xataa ha u sheegaan wax dhacay waaye haday dhinteen waa la dhimi jiray haday nool yihiin inay keenaan laga rabaa soo celiyaan dadku soo celiyaan ayagoo ciidana ku soo celiyaan ciidan ha aadaan haddii